wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya Khadija Al-Makhzumi oo ka hadashay dagaalka Al-Shabaab ayaa iftiimisay in dhibaatada Al-Shabaab aysan ku koobnayn dadka hadda nool oo keliya balse ay mustaqbal la'aan dhigayso jiilalka soo socda. Al-Shabaab waxay 15 sano ee lasoo dhaafay ay jartay malaayiin geed oo ay dhuxul u beddeleen si ay uga ganacsadaan una dhoofiyaan dalka dibaddiisa si ay uga maalgeliyaan dagaalada iyo argagaxyada ay ku dilaan dadka, ayay tiri Wasiir Al-Khadija. Waxay sheegtay in arrintan ay ku kacday Al-Shabaab ay dhul badan ka dhigtay lama-degaan kuwaasi oo markii hore ahaa kaymo iyo dhul beereed. Tallaabadan waxay lama-degaan u rogtay dhul ballaaran oo markii hore ahaa kaymo, dhul daaqsin iyo dhul beereed ah, laf-dhabarna u ahaa wax soo saarka dalka. Wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya Khadija Al-Makhzumi ayaa ugu dambeyntiina waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in loo midoobo sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa dadka iyo deegaanka. Al-Shabaab oo sanado badan dhibaatooyin kala duwan u geystay bulshada Soomaaliyeed ayaa hadda wuxuu dagaal xooggan kaga socdaa qaybo badan oo dalka ah, kaasi oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka.